celisay haddee villadu Soomaali ma laha reerkayaga iskale magaca reerkayaga noogu qor hadda reerkii uu sheegay Daahir Amiin Jeeso xitaa inay aad hoos uga sii degto ayaa macquul ah hore wuxuu yiri markii diyaaradihii Puntland iyo Jubbaland la celiyay haddeen dadkii ayagoo muddo aadan wada hadlin aatiri iimaada waa wada hadlaynaa markay diyaarada ku soo rooceen haddaad celis dadka ugu dambeeya iyo bilaha ugu dambeeyaad rabtaan dastuur bedelkii iyo doorasho sharcigeed inaan ka shaqeeyo haddaan wax walba dhamaystiraya ilama gaaraysa sanadka ugu dambeeya iyadoo 9 cisho ay ka dhiman tahay maanta ayaa weli uu ka shaqeynayaa dastuur uu bedelo iyo doorasho aan heshiis lagu ahayn oo uu keligii wato waxaan rabaa inaan wax yar idiin sheego dawladnimada Soomaaliya iyo in badan dawladaha dimuqraadiga ah waxa ay ku salaysan tahay 3 tiir oo ah golayaasha sharci dejinta golayaasha garsoorka iyo golaha fulinta saddexdiiba awoodooda Xasan Sheekh Maxamuud isaga isku qaatay golihii sharci dejinta tusaale waxa ka ah in maalinna ninkii siyaasadda isku hayaan uu la yiraahdo Warren ha loo jaro ha la soo qabto markii ninka uu rabay inuu la heshiiyana uu yiraahdo Warrenka ha laga noqdo oo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu ku sameeyay sanad gudihii tii sharci dejinta waxa daliil u ah in uu ka dhigay golo gacantaaga markuu yiraahdana taaga markuu yiraahdo iska tago fasaxa ayadana la fasaxo tii fulinta awood qaybsi beeleed bay ku dhisnayd Soomaalida kale runtii taa qayb kuma yan lahayn oo beesha aniga iyo xildhibaano badan oo halkan jooga aan ka soo jeednaa awood qaybsiga lahaa kursiga isaga ku xigay awood qaybsiga ku yimidna miduu isagu awoodiisi gacanta ku qaato oo uu doortay cidaan awalba waxba ku qabsan lahayn ama aan awood qaybsigaaba diyaar u ahayn ayay noqotay hadda madal gogol buu fidiyay wada hadal oo nabadeed gogashi 10 talaabo oo caqabado ku noqday oo ilaa hadda socda ayuu sameeyay saaxiibkay Daahir Amiin Jeeso ayaan hore wuxuu yiri markii diyaaradihii Puntland iyo Jubbaland la celiyay haddeen dadkii ayagoo muddo aadan wada hadlin aatiri iimaada waa wada hadlaynaa markay diyaarada ku soo rooceen haddaad celisay haddee villadu Soomaali ma laha reerkayaga iskale magaca reerkayaga noogu qor hadda reerkii uu sheegay Daahir Amiin Jeeso xitaa inay aad hoos uga sii degto ayaa macquul ah inta waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii meesha maanta ay wax marayso baarlamaanka xorta ah ee Soomaaliyeed ee halkan jooga hogaamiyeyaasha iyo mas'uuliyiinta ururada bulshada ee halkan jooga waxaan mas'uuliyad weyn naga saaran tahay inaan ku dhiiranno sida aan halkan caawa isugu nimid inaan dalka ka badbaadino Xasan Sheekh Maxamuud iyo qalalaasaha dastuurka uu ku wado in dhibaatooyinka soo socda aan ka hortagno waxa runtii aan ku boorinayaa saaxiibada baarlamaanka xorta ah xubnaha ka ee halkan jooga iyo kuwa maqanba inaan si degdeg ah guddoon ugu dooranno baarlamaanka xorta ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya guddoonkii hadduu noqday mid nin gacanta u galay guddoon cusub inaan dooranno waa si degdeg ah mas'uuliyad qaran oo ina saaran taas yaan laga seexan wabillahi tawfiiq ma santahay mikrofon thank you aad iyo aad buu mahadsan yahay